horay wada okay okay yes أنا كل شيء naag waxba ma hogaamin karto naagaysa waxba hogaaminaynin okay naag iyada wareersan ba iyada markay makeup iyo baalal feega marsato ku laabanaysa musqusha 29 jeer ma ku soo baxay ma quruxsanahay sidan ma ahay brother laakiin ninka naag xilligan wax ka sugaya noloshiisa ee u malaya in isaga ay badbaadinayso wad waalantahay brother okay marka ninka odaga Ilaahay u naxariisto Kevin family-giisana maartay waa ugu tacsiinaya dhamaan Soomaali badan way yaqaaneen Kevin Samuels shaqadu ka tagay iyo legacy-gu ka tagayna way sii soconaysaa isaga kaliya ma anigu hadda maanta dhinto kun xaliyaa jiraysa kun Kevin Samuels baa jiraysa okay hana u malaynin dhimashadu inay tahay wax yaro maartay soo booda wax aynu ognahay way maalinkeenu dhalan ilaa hadda okay aynu ognahay inaad dhimanaysid waad ogtahay dooro laakiin qaabkaad u dhimanaysid dooro ama adoo qaniisiinta iyo naagaha feminismka u daba dhaqaya dhimo ama dhimo adoo dhahaya laba xaniyood baan ahay laba xaniyood layaashaana dhisaya dooro adigu qaabkaad u dhiman lahayd okay dooro qaabkaad u dhiman lahayd okay so waxa waaye at the end of the day waa la wada dhimanaya ama adoo maxaa la dhihi jiray Faarax Loser aad dhimanaysa oo tacbaan guriga hooyada game ku dheelaya oo maaragtay iyada maaragtay weydiinaya lacag deyn ah ama waxaad dhimanaysaa adoo laba xaniyooda oo saameyn leh oo dad noloshooda bedelay bad dhimanaysaa so warkaysiya warkayga dabageeniyo maxaa kala dambeeyay hal soo arrow barnaamijka share garay likes-kan ha socdaan barnaamijyada xiiso badan baan haystayaa okay likes-kan ha socdaan just hal sana ka soo wareegtay markii barnaamijkan aan bilaabay aan bilaabay fikradaha xalliya okay hal sana kadibna guulo badan baynu gaadhnay guulo badan oo dhinac kasta aynu gaadhnay rag ahaan haddaynu nahay number 1 waxa soo baxay barnaamijkan intaan waday cod inay leeyihiin ragga Soomaalidu baa soo baxday number 2 barnaamijkan intaan waday waxa soo baxday inaad saameyn yeelan kartaan number 2 number 3 in rag Soomaaliyeed oo dhibaataysan ay jiraan rabana inay noloshooda bedelaan okay number 4 in ay jiraan in aysan cidna ka raali ahayn in rag ahaan aad hurdada ka kacdaan korna aad isu qaadaan waadna garanaysaan cidaan raali ka ahayn okay aad garanaysaan cidaan raali ka ahayn in ragga Soomaalida horumar gaaraan korna isu qaadaan because of faa'iido waxay ugu jirtaa in la idin isticmaalayo arinta kale ee barnaamijkan intuu socday aadka aynu ugu guuleysano waxa kamid ah aan baaris badan ku sameeyay in ragga Soomaaliyeed ay ogaadeen bal dhaqaalaha soo galaya ونو دقالة يسوق له هالكو هذا دقالة يسوق له هالكو هذا يا فموسى like دقالة هذا يسوق له هالكو هذا رجع دقالة هو ده حساب تمام رجع وقاعدين ناقة أي بربريان وحرير كربان ودالن إن المحل دي يشتري إيشك أن أي مرتي أي لا نقدن وحكله oo naagtiis $300 rag iPhone bixinay rag balanbalay oo lacag inta laga qaado maalin kasta loo gambinay hurdada ka kaceen lacagta waxay galiyeen gym inay aadaan lacagta waxay galiyeen labistaan lacagta waxay galiyeen nadaafadooda ka shaqeeyaan lacagta waxay galiyeen inay ka shaqeeyaan maxaa la jiray labiskooda lacagta waxay galiyeen iyagu isku maxaa la jiray ilaaliyaan lacagta waxay galiyeen ganacsiyo okay أنا أصلاً فانا رجينيا so intii barnaamijkan socday number 1 hal sano gudaheed barnaamijkan markii aan bilaabay May 5teedii bay ahayd okay laba bari baa ka hor baahayd maalinkii ku aadanayd barnaamijkan xilliga aan bilaabay May 5teedii 2021 bay ahayd sidaan hore idinku sheegayna bilowga barnaamijkan wuxuu ka dhashay kaliya warniyo de habar kasta way aamusan tahay xaliyo
expertkii iyo khibradii iyo waxaan noloshan siday u socotana war waad ka haysaa maxaad u aamusantahay why u aamusantahay sometimes when naftaada la sheekaysatid waa inaad hadashid waa inaad dhahdo why waxaan u dhacayaa okay inaad caloosha soo kacdo caloosha buuxsatid kaliya noloshu maaha like iskana socdaan oo barnaamijka uu sii soconaya like isku socdaan kadib su'aalo badan aan isweydiiyay baaris badan aan sameeyay maanta sida ugu saamaynta badan aad qof ku gaari kartid noloshiisa ama aad saamayn ugu yeelan kartid waxa ka mid ah internetka waa sida ugu fudud ee nin dhalinyaro ah maanta aad ku gaari karaysid waa sida ugu fudud ee adduunyaha dhan lagaaga daawan karo waa sida ugu fudud maanta ee aad kumanaan kun oo qof connection iyo boqolaal kun iyo boqolaal milyan aad connection kula samayn karaysid adduunyada maanta hal waxay noqotay hal bay noqotay tuulo so sida ugu fudud maanta nin ahaan aad adduunyada ku saameyn ugu yeelan kartid waa internetka okay waxaan dhahay okay sida ugu fudud TikTok waa okay dad baa aaminsanaa moogtay TikTok aniga ka hor inay tahay meel lagu niikiyo rag badan oo laba xaniidlayaal waxay dhaheen TikTok marka adigu soo gashaan oo maaragtay bilaabay inaan soo galo aan wax ka dhageysto bal okay laba xaniidlayaasha weydiinaya Facebook ma leedahay Facebook ma lihi qof kasta oo Facebook igu soo post garanaya accountiga mas'uulka mihi aniguna ملهي اوكي انا اسلف انا رجليا سو maxaa la dhihi jiray waxa dhacday waxay tahay marka kadib isxilqaan isxilqaan baa maxaa la dhihi jiray aan bilaabay okay shaqadii tartiib adigu 4 bilood ugu dambeysay 5 bilood ugu dambeysay oo barnaamijkan qof kasta oo Soomaaliya inuu jiro ka warhaya ama ay og yihiin inuu jiro qof la dhaho xaliye ha jeclaadaan ha nacbaadaan shaqadeeda maaha laakiin way og yihiin xaliye qof la dhaho okay shaqadeeda maaha inaad jeceshay inaad nacab tahay laakiin shaqadeedu waa inaad og tahay inuu jiro qof la dhaho xaliye muhiimadu waa intaas okay aw malayn muhiimadu inaad jeclaatid okay and so kadib barnaamijkan step by step baahi jirto horta barnaamijkan buuxiyay okay baahi jirta buu barnaamijkan buuxiyay saamaynta hal nin uu leeyahayna waad ka dareemaysaan internetka guud ahaan okay saamaynta halkan barnaamij kaliya uu leeyahay internetka waad ka dareemaysaan rag badan baa isku bedelay rag badan baa noloshooda isbedeshay rag badan baa maxaa la dhihi jiray kor isu qaaday kaliya ma aha shukaansi iyo isla sheekaysi ifan ragga naagaha qabay rag ma la hadlay anigu dhahay 6 bilood naagteeda lama seexanin 4 bilood naagteeda lama seexan oo maxaa waa la igu adkeenayaa ma dhibaato kale jirta lacag waan dhiiba wax kasta waan dhiiba waa ma aqaano niyo maxaa la dhihi jiray wallahi waxa waay rag badan oo maaragtay nolol ciriiriya ku jiray oo daciifa baa kor isu qaaday okay barnaamijkan inta wanaaga uu sameeyay lama soo koobi karayo and rabadaantii marka off baan qaatay totally off baan online ka qaatay wax postina ma sameeynin wax live ma sameeynin wax kale ma sameeynin telegram baan maxaa la dhihi jiray sheekan update-yada iyo ku siinay akhyaarta iyo markaan channel salaan live ka galiyay telegram-ka ku dhufo linkiga profile-ka saaran waad fiirin karaysaa ku dhufo linkiga profile-ka saaran waxa waaye telegram-ku toos ku geenaya channel-ka telegram-ka update-yada wax kasta meeshaasaan ku wadaagnaa okay so mawduucan barnaamijkan iyo maanta iyo soo laabashadeeda iyo waxa soo dhan kaliya waxaan rabaa inay noqoto isxasuusin ah meeshaynu ka imaanay meeshaynu u socono iyo bulshadeena maanta waxa ka dhex socda rag ahaan iyo saamaynta ay inaga inagu leedahay ku dhufo linkiga profile-kayga saaran si aad ugu soo birtid maxaa la dhihi jiray xertayda telegram oo aad ka mid noqotid laba xaniyoolayaasha igu xidhan okay barnaamijkan intii uu socday maxaa la dhihi jiray controversy iyo maaragtay waxyaabo badan oo negative la kulmay oo ah habro badan ay qayliyaan caytamaan waxaas laakiin waqti uma hayno okay waxaas waqti uma hayno ujeedka ugu weyn ee waxaas oo dhan ay lahaayeen wuxuu ahaa in shaqadan istaagto laakiin ku xisaabtan markaad hogaamiye tahay diyaar u tahay inaad bulsho bedeshid ma tihid qof gadaal u laabanaya okay TikTok inta laga baxo app gooniya sameeyna oo xaliye la dhaho brother markaas appkaas ay imaanaysa live ka daawanaysa hadda inta ka baxo okay
so shaqadu shaqaystaagaysa maaha laakiin dad badan way isku dayeen qaylo calaacal sheeko wax kasta laakiin arrinta aadka ugu faraxsana waxay tahay khadiijooyin badan oo daalanaa inuu biilkii ka go'ay oo laba xadhiyoodlayaasha ay garteen in haan maran ay wax ku shubayeen markay lacagta diraanna taleefanka laga dansanayay weliga kor iyo hoos haddaan kuu sheegaya wax firiya ma jiraan naag wax firiya ku siinin naag waxba firiya ku siinin wax firiya ma jiraan brother okay noloshaada ku mashquul markii lacag weydiiso waxa leedahay naag aniga aabaha miyaan ahay ani ma ku dhalay please ii kala xaqiiji aniga gabadh ma jirta aan dhalay oo igu leh biil iyo maaragtay inaan wax siiyo miyaan ku qabaa maya sooy naagtaad qabto xataa haddaysan sidii loogu talagalay u dhaqmaynin oo ay hal habeen laba habeen ku leedahay waxba kuma siinayo si isaar ma jirta caawa biil ma jiro adiguna khadiijooy okay nimanka Soomaalida jireecoodii wuu yaraaday ma dhihi karo wuu dhamaaday laakiin wuu yaraaday hoos buu u dhacay okay mu dhamaanin laakiin hoos buu u dhacay jireeci hoos buu u dhacay noloshii waxay bilowday tartiib inay isu bedesho meelaha markaan maxaa la dhihi jiray maqaayadaha marmarka qaar markaan takeaway qaadanaya ama drive through-yada waxyaabaas aan rag Soomaaliya meelaha ku arko dhowr koox xabo waxaan arkaa rag iyo aruursanayo kaligood wax cunaya aad baan ugu farxaa arrintaas aad baan ugu farxaa in dhalinyaro oo maxaa la dhihi jiray Soomaaliya oo nin dhalinyaro kale intuu cuuree kaale wax la cuniyo soo bax kaale wax la cunto qof baa ahaado si waxa kula cuno si kaale soo bax uree waxa arki jiray waagi hore rag naago 800 kg wata naag caloosha 8 lakab kula baad wadataado nin yar oo dhalinyaro oo fit like brother si amal barnaamijkan ka soo xataa dadka Soomaaliga caadiga ku hadla even say wallahi hatta si fiican barnaamijkan uga warhayaan say wallahi waa salaamaya barnaamijyo badan oo gooniyeedin ka wadin sooda waa daalantii say wallahi aad baad u daalantihiin waxaad u baahan tahay khadiijooyinka daalan ee 18 kiilo ee make-up ka marsanaya inaad joojisaan inaad daadaan waan date gareynaynaa brother okay reality-ga ku kaca okay I know inaad qurbo ku korteen I know inaad ku korteen maxaa la dhihi jiray culture kala duwan laakiin la soco Soomaali baad madow ma tihid say wallahi dad maqlaysid black American ma tihid maxaa la dhihi jiray black ku nool UK na ma tihid madow baad tahay Soomaalina waa tahay okay khadiijooyinka daalan ee ajnabi baan raacayna dhahaya ee aad credit card-yada hooyadii dheydadka ku geynaysaan joojiya heerkaasay marayaan say wallahi iyaga daanyarnimo wuxuu u dhaafay way dhaafeen iyagoo ka bixin simbin way dhaafeen iyaga credit card-ka hooyadood bay ku geeyaan maxaa la dhihi jiray ma haystay saw card ma haysto iyo wuxuu cunto ku gado doonaa okay credit card-ka hooyadood bay ku geeyaan naagaha outing ma maqlaysaa cabdi jooji ciyaarta jooji nolosha reality ku kaca hurdada ka kaca fadhiga ka kaca hala shaqaysto okay and so barnaamijkan saameyntiisa 100% way maartay weynaatay isbedel badan uu keenay wax badanna uu ka bedelay rag badan oo dhalinyaro aad baan ugu farxaa marka arko nin dhalinyaro oo dhahay maalinkii aan bilaabay xalliyo inaan ku dhageysto waxaan bilaabay inaan nolosheeda hurdada ka kaco nolosheeda dib u fiiriyo nolosheeda maaragtay aan dhaho sidee wax u jiraan okay and rag baa barnaamijkan markuu bilaabanayay dhexdhexaad markuu marayay markay ku xidhmeen kadib shaqo bilaabay rag baa markuu barnaamijkan ay maxaa la dhihi jiray dhageysteen daawadeen gym aaday rag baa markay barnaamijkan arkeen naagihii daalanaya madaxa ka cunayay ku dhahay rag bay lacag u baaqatay rag baa taajiriin noqday barnaamijkan dartiis khadiija kuusay ciidkii warar badan bay soo gaarayay ciidkii naagaha aaday u calaacalayaan waxay taagan yihiin biil ma jiro waxbana looma soo diro bariyahan wallahi bila yaad wax u dhiibatay khadiija kuusay yaad wax u dhiibatay just ii sheeg aabaha wax ku gedi waayay okay laakiin waxaad qabtaa maxaa la dhihi jiray xoogga aad ku dhahdid ciidkii wallahi shiid baa jiray shiid halkee ka jiray aabaha ma yahay just u sheeg khadiija hadii lacag weydiiso very simple habaqin waxay dilayeen waa cabsida iyo inaad naag kale heli kareen labadaas ay dilaysaa naagta hatta hadii lacag weydiiso very simple waxaad ku dhahdaa listen khadiija kuusay ani ma ku dhalay maya aabaha ma ah maya walaalka ma ah maya wiil Soomaaliyeed aad tahay wiil what wiil Soomaali ma ah wiil amxaraan ah raaliho khadiija raaliho
waxyaabaha yaryariiska calool jilaaca la idinkaga qaadanayo wadada hadda maraysid oo naag alaab wada aad aragtid ha saacideynin rag badan waxay soo direen kaliya daanyare isqorqoraya oo le maxaa la dhigi waan ku caawinaya walaalo war dantaada raaco war xayawaan ha noqonin